Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Walaalaha khabi guys, welcome back to another video. So marka maanta waa iyo muuqaal cusub waxaa la fadhiyo legend nin weyn nin caan ah aad nin culus aad wada taqaanaan waa qalin jaal oo qalin official waa milkiilaha qalin la jara waa loo garan og yahay Cabdiqaadir Imaan Maxamed oo qalin la jara qalin leh iyo saaxiibkii aadan official ma sha Allah aad way soo dhawaayeen qalin waan dhawahay ma sha Allah sharaf been oo tahay mar laba ay mar kale soo muuqdo channelkeena ma sha Allah in badan waan rajeynayaa insha Allah maanta way barnaamij qurux badan asxaabtana wadnaasa ogtaybo innaba caadi soo marka barnaamijka maanta waxaan u magac darnay barnaamij magiisu yahay dil ama dooro waxaana soo xulanay 10 ka mid ah fanaaniinta oo ugu fiican macnaha ugu qurxoon macnaha qurxoon laakiin anaga ahaan galabta kuwa macnaha galabta noo saaranta okay qalin hadaa ku wadii mid ugu horeyso waxaan ku soo qabanayaa idil barqad guursan lahayd idil barqad waa fanaan oo isheeg fanaanad oo isheeg maasha Allah oo qurxoon way qurxoon tahay maasha Allah laakiin aniga ahaanteyda ma aan guursan lahayn ya mid waa ku guursan lahayn midna ku guursan lahayn sababtoo ah waxaan ku guursan lahaay maadaama haddii dar oo waxay noo soo qaadatay horta isheeg maaliyadda maadaama maaliyad soo qaadatay maaliyadda oo calanka Soomaaliyeed uu ahaan lahaa oo guursan lahaa ku qaadan lahaa sidee rabtaa haddase maaliyad oo waxay noo soo qaadatay isheeg karbaarka cad oo sports caadiya sida daraadeed marka iga raali noqota baan leeyahay idil barqaday waa maqluus anoo waa biji soo marka waan ku salaamayaa walaashay qaali halkaan aan salaamina ma sha Allah walaashay idil barqad next day waxay noo noqon insha Allah حمد بلن ما شاء الله قادن ما لهن فكر كيف برسيكو سام بدك كويس تاور ملا وحبا سكة أبان بودي فيس كده معناها مرور كتاب ما حوي كنت بدي هنا لكن إمن كماي يقوم يجرب قبل لما الفيديوز اوكي لجن نجست قف حيرون قريسا قف احتقا aan dhowdigii aan bal halkan ugu hore intaan sheeg oo ama guurso ama guursan isla gaar halkan aan ka yara salaam laki xayd wacays ma ayada baa ma soo igu tiray ma sha Allah walaashay qaali oo salaamaya salaam boqolkiiba afar quraanka cadadiisa ayaan ku salaamayaa 6666 aayadood salaanta muslimka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh marlabaad baan ku leeyahay laki xaaji wacays waan ku salaamay walaashay qaaliya guursan lahayd ما شاء الله لك يوم كوسل هاي وقف أو إيشك أو كرتله أو إيشك يا أو أجمعان له ما شاء الله ها أو إيشك أو هذا الكيكو هذا اللي سمعناها أو حكمة ليسن ما شاء الله ستة إنما بعد ما هارته ما شاء الله كبر بدن ما إنما بعد ما مسحقوها وانكو سلامي جاو إنتاك سلاميس أوكي نو مان أوكي next one aan ku soo qaban doono wow qoftan waa ma sha Allah guursan lahayd mise waa dayaci lahayd mise waa radgoon lahayd waa teeta fanaanada codka macaan codka halaasiga ma dadkii hindiga baa mase fanaanadii oo ishak فنانة عندها يقوم معلم سومالي سوسمتها فرحكفتها واو ما شاء الله فرحكفتها وانكو سلامي يا سلام بقولتمي أفرت قرآن كعدديسة سلم ماذا سام وسلامي لك حاجة وعيسام وسلامي سلم ماذا أيامكو سلامي يا ما شاء الله فنانتين عدك محان قروح ذا يهيبت يهيبت وسيي وقلدي ودمستري ما شاء الله انت بقى قروح عد وناك أسلوب انت بالله لما هلا ليرا سومالي سما ساسترا لكن انت بقى واتسيدته وحن كل لا هرو صعو ونقرسلا حن قرسن ويا سبب ما شاء الله وفديد فنانة هنتي قلوا هراي هنتي من الصومالي Soomaali umada laakiin hinti bay ku qaltaa hinti bay u moodaan baad ma sha Allah okay ma sha Allah laba waa ogolaatay labaya laba waadid laba samar labana waa ogolaatay sama okay next waxaan noqon doontaa
qofta xamar xaaraanta ku haysata meedhay oo ah واكي دقيقة no waa nadiira nayrus haddaba kalin waa keen malaha horta iligtaa oo geeska ku taal ma garanaysaa waa keesh sawirka markuu saaya horta midigta baa loo moodaa sax maasha allah laakiin waxaan jeclahay inuu bidix yahay sama laakiin maasha allah wey horta way qurux badan tahay maasha allah laakiin xoogaa yara camanka bay ka buuran tahay marka waay dee wax ku sheeg soo ma dhihin waa ra'yigay waa ra'ligeyga macnaha horta qurux bay sidataa walaashay qaali waan ku salaamayaa nadiiro nayrus سلام بقولت من أفرد قرآن قاعد ديس أيام كوب سلام يا ما شاء الله سدا يسلم مذا وفنان ذي هنا سلام أيام كوب سلام يا لكن هو كنا حريص وإن لا في الشاء إن شاء الله thanks مقول سلام بس مقول سلام على العموم مي مقول سلام هاي كان مي أنا عنده مقول ولا شيء وي لكن مي سلام يا okay thank you قليلا نجستنا وحنا نقد نمتع الفنانة ده مكير رئيس التوقيت معنا يشك مقدش إسلاش التين وياني واتتا شادي شرف شادي يا صوتا واو لكن عندنا يعني فرصة يكون قصة مرتو وتقولسن له نسمى فرصة معناها فرصة تقول يعني عملها نقول إلا صفر عمل إلهي أمك كسرت anyway يعني كسر خاد وقبرني ماذا هذا even anyway حالات معناها فرصة كويس شو شادي شرف بالكبر رأيك ما شاء الله شادي شرف عن أحكيا سيدا قف أو حيو أكتهي أوصن إيش مروجة يوحبا أو بحينم لكن ما شاء الله هو يهرب صبر كذا وقرحه ياهي ما شاء الله ما دام صبر كذا برا إيش ميديا نصور دكتي وأكون مع سنتا بنقول ياهي شادي شرف وأنكو سلام يا سلام لميدا أدنى سيدو قلة سلام بقولك من أفرد قراك عدديس أيامكو سلام يا وأنكو سود بينا يا لكن مي معي والله شيء قرصن مايو ما شاء الله ما شاء الله thank you أوكي قفت حكت قليل لو حينون وقنيسا إن شاء الله أوكي قفت حكت وحينون وقنيسا الفنانة وفنانة ما شاء الله قليلا قليلا واتنا مقاليلدن حدكتي نيروش قالدن اي وانكو سلام بقولت من أفرد قرآن عدديس أيامكو سلامي سلميدا قاليلدن حركات كبان كوكوسن لهاي سوما لكن سمندان دبوي كدبا تيميدو oday baa ku dhashay taas ku damreeyay marka waa may saas kama wade xogaa waa sida qof sheeg oo habarowday ayuu fogaan okay next waxay ku noqon doontaa alfanaanada ay sheegeen xarakada waa ay sheeg maxaa ku raada munxafis حفيز بما فدزا إما كيف حفيز هذا أبو أنا حفيزي وأبو سلامي ما وأبو جعلها حفيزي رنا ما ولا تنمو يا ولا تنمو ولا شيء باتهاي وأبو سلامي يا ولا كيف أبو قبو سلام بقولك من أفرت وراك حديثة أيام أبو سلامي يا حفيزي ما لا أول وقبا لكن هذا لو قبلهن كتبت بي أيام نقلها كتبها بقول فيرن لهايو يا حتى نصيبك ويكون صبح مي نصيبك هذا بيجي لهاد ويكون صبحه أدوي تعال قاوي حكي حدا يعني بوست نقال نكتب نقال بارش الله أوكي قفتان قفت نجست نوع وحاوي الفنان إيش سعدي السمن أيوة وانكو سلامي مي سعدي السمن وانكو سلها ما نكو سلها because hadhow waxaan ka baqayaa markii ay sheeg helada ay noqoto leeshise u wada ciyaarta inay ka soo toosto baan ka baqayaa okay anyway ma sha Allah salaamaya walaasha Soomaaliya qofta ugu dambeys alfanaan qalin ma qura alfanaan qalin la waa dhig kartaa dadka alfanaan waa ay Soomaa waa waray mi adaysan tobanka fanaan oo hadda ii sheeg oo anyway hal qof ka yiri okay qofta ugu dambeeyso waxaa ku raada alfanaanadan waxaan oo noqon doontaa next waa xaliimo goba ma sha Allah ma sha Allah James markay wadato waxaad ku qabtaa gabadhaanad inaba caadi maahan waan ku salaamay gabadhay salaam boqolkiiba mi afarta waan ku salaam walaashay qaaliya thanks baan ku dhihi lahaa waan guursan lahaa waxaan guursan waay walaashay way
waa ku dhamaaday qalin ma sha Allah tookadeedii baa la gaaray waa tookada tobankii waa weydiiyey waqtigiina waan aragnay waqtigiina karaaraya isla aniguna hadda waa lii weydiin insha Allah fanaanada ugu horeysa weydiin fanaanada ugu horeyso idil barqad le baan ku weydiinayaa ma sha Allah idil barqad ani ahaan horta intaan ka salaamay walaashay haddii guur ee maskeen xaaladda maskeena keenta because waa gabar ii sheegay timaheeda sida u dhedhe eritrea oo kale ma sha Allah iyada eritrea maaha soomaalida yiraahdeen saas eritrea bay yiraahdeen waa gabar Soomaaliyeed oo qurux badan anyway ra'yigeyga ma guursadeen sababtoo ah kaamil walaashay ila ay noqotaa wajacnaysta ما شاء الله قفت حتى إيكان ولا شاهد أنا قطع نقدر طبعا كفنان ولا شيء أنا وين فرنتنا ولا لهم أوكي وحنكو كينا يا حمدي بلا واتقانا ما شاء الله قلنا ما يستر معنا قفتان يا حمد بالله وقت أنت كسلامة ولا شيء ما قادر لهد anyway سلامتي اسكنا أنا صو كوما هذا فشيالو أنا صو كوما سوكو قرئي قردربو حمد بالله وخاذنا maxaad ku qaadan lahayd garta gar iyo gardar baan ku dhahay ayo waad qaadan lahayd heybad codkornimo maxaa ku dhahay asluub waxa dhan maasha Allah way u dhameystiran yihiin waana qaadan lahaa naxtinta xagee anta caadi waa ugu forjeen waa ugu qaadan next qofka xigiisa boobsi dumaashi waa ku salaamay okay qofta ku soo xigta akuza adka haddaba waa kahay maxaad ka dhigi lahayd laki xaaji wacays maasha Allah yaa kuu sheegay in laki xaaji wacays la yidhaahde waa ka dareemoy saas ma saas waa okay anyway laki xaaji wacays ko ma guursayn kabarna maxaa sababay tartiib ra'yila waatan ra'yigaaga ma guursa lahayn because ya intaan ka salaamayna laki ma guursadeen baan waa ko ya jawaabteeda ma noo haysaa sababtoo waxay tahay wuxuu yiri asoo jira daada hadda joogtana dooqiga kamaana helin Soomaaliya sidaas lamida dooqiga moodii ma kabranay amaana oo arkaya my brother my sister okay next fanaanadeena xigta adka macaan hindiyada suraaleyda inaba caadi ahayn farax kaftan oh my god ma guursan lahayd mise farax kaftan boqorada codka ha fikirin hore ka sheegtee boqorada codka haye boqorada codkan anyway ama ku soo duuduwa reason ma ku raacsiinay sabab yani ma guursan boqorada codka ma bareeyo waa fanaanad hindiyada ma bareeyo ma ka fiirsatay waa ka fiirsatay qofta xigta maamada ma taqaan ما شاء الله نذير نيروس يا مامada muqdisho ayaa ama waqti dheereeyay magbuus hay'ada because sababta dooqeeyo kama wehelin makeeshid qofka xigtiisa boobsi makeeshid sama qof kala kacsanayo ugu xigtaan rajeenaa malaha ma sha Allah dadkii dhan macna la yaa bintiimo inta yarka waa ka baqdaa umaleeyaa sama ka gudub haddaba lamaanadeeda ما شاء الله ولا شيء شاديشة هل كان إنك السلام هيا دن ما عرفت هدي لطخ حالات أنا وياكم مع هذا والله خبر وما بحي يستمر إلى إنكم ما كسبنا وصافر سكور هاي قاعد يصير هذا مصدر عم تفتح هدي أنا وي نلاش نسكن كيني لهي وقال الله صوت كوجع على هذا الحيتم كان حط كذا كان حط إيده وفنانة heesaheeda ma dhageysto hadda dii la yiraahdo boqolaalo cod macaana jirta waa jira heesaheeda ma dhageysto laakiin waxaan la socdaa YouTube-keeda waxyaabaha ay soo geliso ma codkeeda si u hadlayso sida ay sheegay haraasabi yaa ida xaqaado sida unsiga la taarayo waa kaas wow waad ku haysataa anyway okay iga gudbo qof kale isoo qabo okay haddaba inaba caadi maahan waxaan kuu keenay haddaba ladan qaaliladan sida midax bilan bilaa shuruud idana inkastoo hadda walaashay intaan salaama inkastoo hadda iyadu ay meelaysan tahay nolosha hadayna isku keeni lahayd qaaliladan ma meelaysan tahay ma meelaysan tahay ma sha Allah haye anyway
wax doon eeqa ay ahaato ma diideen waad qaadan lahayd qof kale itus haddaba jeceliyaa jabkaasaa maqli jiro wallahi waa xafiis miya xafiis weeye xafiis muna xafiisay hadda horta maasha allah intaa kaa salaamaadi seegaadaba hadda waa meelaysan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh laakiin anyway ma aragt anyway waddo walbay qaadato waad ku haysataa si kasta aad waan ku haystaa waan qaadan lahaa gur hadday ahaan lahayd waad qaadan lahayd qofta xigtiikan ool ma wada qaadanaysaa le ade taa aragta ma qaadan amaad wax ii reebi adig ra'yigaaga waa kasoo hadasha haddaba saaxiibteed le ahaye waa dadabay saaxiibteed le ahaye sacdii siman my sister halkan baan kaa salaamayaa sacdii siman maasha allah aad waad u siman tahay gar i gardaro qofkan waa qaadan lahaa waa fanaanad keliya ee soomaaliyeed aan aniga garanayo oo isheeg maxaa kule markay heesaysa ya aana tinteeda furin xarakoota laafiyoota aado anyway waan kugu haystaa my sister anyway adiga macalkabahaaga waan kugu haysanaa anyway nagu qaado qofka ugu dambeeyaan rajeynaa nagu qaado qofka ugu dambeeyaan rajeynaa qofka ugu dambeeya maasha allah oh my god gobaaday gobnimo iyo geesinimo lama kala hele ya haddaba waa kanaahe anyway qoftan iyadana waa boqorada iyo sheegeen codka halaasigana waa tee marwa xaliima goba wata anyway gobaadey welcome to my life and deal lagu doorta lagu caleemasaa inkastoo hadda micnaha xaajigeeda soo kukuuraya usoo cimaamad waa kaftana usoo cimaamad anyway marka waxaan dhihi lahaa welcome to my life waan qaadan lahaa bilaa shuruud waxaan rajeynaa qalin mineeriya kuugu timaada xatii waa qaadan leesano anyway halkaas noogu egyahay qofka ugu dambeeyay haddaba barnaamijkeena waad maqasheen tobankeena fanaaniin oo ugu quruxda badnaayeen oo ugu heebada badnaayeen oo macnaha quruxda markaan dheer anagaa soo dooranay maaha qurux qof walba isagaa isla qurxan soo maha waa kaya idinkaas bixin wax kaa qurxan ma lehe soco baa leeyahay qof walba waa kaa anagaba waa kaya quruxda xaggeenoo taala waa iska soconaa magaalka baan ku yaacaynaa maasha allah waa saaxibkiin qalila janaal like saara haddaad ka aragtaan youtube-kiisa hala booqdo official baa igala soo xiriirtaan soo linkigiisa waxaan soo dhigaa insha allah hoos baa la dhigayaa ku taataagsada aadan official haddaa aragtaanna linkigeyga sidoo kale ku taataagsada okay aad mahadsantiin waa mahadsantii waa idin salaameynaa bye bye